Read this story. أخري sheekadan. Safety on the road. badqabka wadada. Part 3. qaybtii saddexaad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Read this story. أخري sheekadan. Safety on the road. badqabka wadada. Part 3. qaybtii saddexaad. Then kadib you must cross carefully. waa inaad u goysaan si taxadar leh. You should look. waa inaad eegtaan ama aad fiirisaan left bidix, right midig, then kadib left again, mar kale bidix, before you cross inteedan goyn ka hor. You should do this. waa inaad samaysaan tani before you cross intaadan ka goyn at a zebra crossing. goynta meesha dadka ay ka gooyaan as well si wacan. When you cross markaad goysaan, walk u socda quickly si dhaqsi leh, but laakiin don't run, ha cararina. said waxaa tiri Sergeant Amina. Sergeant Amina then kadib told waxay u sheegtay the class fasalka about wax ku saabsan the different types noocyada kala duwan of road signs ee calaamadaha wadooyinka. She showed them waxa ay tustay pictures sawiro of the road signs oo calaamadaha wadada ah. The first type nooca ugu horeeyo ama kuwaad is called waxaa loogu yeeraa prohibitory signs. astaamaha ama calaamadaha mamnuuca ah ayaa waxaa loo yaqaanaa prohibitory signs. astaamaha ama calaamadaha mamnuuca ah. They prohibit waxa ay ka mamnuucaan people dadka from doing sameynaya certain things waxyaabaha qaar. The sergeant said ayaa tiri sergeantiga ayaa tiri. The second type nooca labaad of road signs ee astaamaha wadooyinka is ayaa waxay tahay the mandatory signs. astaamaha waajibaadka ah. They tell waxa ay u sheegaan a driver darawalka what he or she must do. waxa isaga ama iyada waajib ku ah in ay qabato ama inuu sameeyo ay tahay. The third type nooca saddexaad of signs ee astaamaha ama calaamadaha. Thanks. ألف لو النبي ألف لو النبي ألف لا قضي